madaxweynaha xilku hadda ka dhamaaday oo yiri murashax baana isagana fariin baan diraya madaxweyne cabdi weli anigu filim mayna sharaxays ya dhowr jeer horaatin anigu ma sharax murashax maahin dib baan kasoo sheegi doonaa aad iyo aad وحصوصنا 14 جنوري 2014 maalintii aan xilka ku wareejinay sawirkeeda aan hayo marka xilka ku wareejiyay oo ku mariyay ciidamadii aan gacanta ku hayay intii aan ka gaari karo ma xarunta joogtay inta kale aan ku tilmaamay tarkoobkooda ku siiyay wixii aan gacanta ku hayay maca gurigii furihiisii alaabtii furniture-kii loo soo gaday oo sidiisii container-da ugu jira aan ku furay ku tusay inventory oo dhan aan ku dhiibay saddexdii mashruuc oo caanka ah aan ku dhiibay oo ahaa mashruuca aeroboortka Garowe Boosaaso oo soo dhamaaday feeskiisii dhamaa tartankiisii shirkadihii gacantana ay ku haysay Unibos hay'adda UN-ka u qaabilsan dowladda Talyaaniga bixisay lacagta Unibos baa maamulisay oo supervision-ka lahayd oo ay sameynaysay aan ku wareejiyay hawshiisa inay bilaabato aeroboortka Garowe iyo muxuu ahaa jaamacadda Maakhir oo iyagana heshiiskoodii la soo saxeexay 10 bishii October 2010 oo daahay oo dhowr jeer ka hadlay sababta oo u daahay ay hay sabab adu qayb ka ahayd inta joogtay xamar aad joogtay isagana dokumentigiisa baan ku wareejiyay master plan-kiisana waan hayaa maanta master plan-kiisa laguma dhaqin inta samaysan soo qabiyaa feeska labaadna aan loo raadin waladii hawsha maamuleysay oo ahayd nimanka la yiraahdo waxay Kuwait fan oo loo dhiibay qandaraaska nimankii qaatay subcontract ay ku bixiyeen lacagtii ayna ku wareejin 1,700,000 wili ay ku maqan tahay 500 oo kun markii hore dulaal iyo malaalay kala qaateen aduu aad ka wareysay ragay ahaayeen qaar wasiir ahaayeen anigu waan maqashoonahay ama hal deer aan ogahay anigu ay Australia kala soo hadlay oo aan ku yiri mashruuci feeska labaad ma ahayn kii rabta ana bixinayo lacagta imaaraadkan ka bixinaya xogaaga magdhow ahaan intii hore looga xaday tuuganimadii ku jirta hadda aeroboortka oo runway-ga laamigu saaran yahay la rabay 45 inuu ahaado runway-go dhan oo ahaado 60 markii xajka sanadka la aadi gaaray diyaaradii ku degi kari waayay inay kuma kala wareegi karo terminalkan ma tegi karo qaaraankii analka ururinay hadda aan ku ballaarinay shirkadina aan wadi soo codsada bal inta ay dhiman tahay lacagtaas inta ka dhiman 1 milyan way noqonaysaa intay qalabkooda furfuray in la sameeyo xamar bay taala arqalada aad calaaqaadka gelisay labada dawladood dhexdooda aad gelisay lacagtaas u imaan weyday waa taala baasha caalamka bixisay deesha caalamka waxay sugaysaa inta maamul yimaado madaxweynaha iyo prime minister-kuna gacanta ku hayaan qoraalkii waa diyaar waa la sameyntaas waa ugu bishaareynaya dadka reer Puntland in ay lacagta aeroboorkaas oo dhamaan doono qaybtaas intaasna waa taan kugu wareejiyay aakhir jaamacadana waa sidoo kale wadadii Chinese ku sameeyay inta ay ka marto mudug iyo nugaal iyo sool iyo inta biyo baxdada ilaa Boosaaso iyadana waa taan kugu wareejiyay faylka saddexaas mashaariic waxay madaxweynaha oo bixin karay oo gacanta ku hayay inta kale wasiirada iska lahaa inta dhigtada ku soo dhacaysa Cabdullaahi waa dad intuu hadda tago warma qabta anaa sameeyay ama sameeyay waxaad samaysay oo aad bilowday oo aad dhamaysay balow dadka farta u saar bal dadka u faas ama hadda iyo qabtaa aad nooga tagayso oo gacanta hadda lagu hayo taas waxaan ku leeyahay waxa weeye dawlad dhamaystiran inaan marka kugu wareejiyo 14 afkaa ka qirtay meedida ku jirta waxaan ka codsanayaa inaad saartaan maalmaha wixii Cabdiweli afkiisa ka soo baxay been aan laga sheegay run ah inuu yiri dawlad dhamaystiran ciidamadeedii iyo xukuumadeedii iyo dhismayaasheedii iyo waxba lagu wareejiyo bal arrintaas soo saar taas waa wixii Cabdiweli afkiisa ka qirtay su'aashu waxa weeye marka Cabdiweli maxaad adigu hadda maanta wareejinaysaa waana wada joognaay hadii ilaahay idmo bal maxaad wareejinaysaa saalaasha aan hayo ma soo noqonaysid maxaad wareejinaysaa maxaad wareejinaysaa waxa weeye
waxaan ka maqlay idaacadaha weli wuxuu yidhaahdaa mashruucyada isteedyadu ay gobol degmooyinka ay ka shaqeeyaan councilska GBLG-ga goormuu ahaa kaas 5 sano oo aan anigu joogay waa socday waaba ugu imisa waa markaa barnaamijku diyaar ahaa dowladda iga horeysay oo diyaar waqtigeeda welina waa soconaa waana socon doonaa wash waxa la yiraahdo barnaamijka musulo iyo waxa la sheegayay musulaas islaamka waa isla wadan kara baadiraas waxa inuu mushir la yimaado 5 sano madaxweynaha ma haddaba kulli nin xil hayay waxba laga filayo inuu sameeyo waxaad maanta adigu noo sheegay kadib bal noo sheeg badrool baan nagu qodnay meel baan ku sugnay laba ceel baa nugaal diyaar ka ahaa laga qodo Soomaaliya oo dhan baa lahayd laakiin hawsha la sii qaban lahaa waxaan laga filayay marka waxay ahayd wixii anigu aan wareejiyay amni dhaqaale sugan arrimo bulsho ma garatay mashaariic siyaasad degsan oo nidaamka federaalka ku dhisan oo maamuladii ay dhisan yihiin dowlad goboleedyada dadku u yaqaan laakiin dowladaha xudda ka ah dowladaha federaalka arrin dhisan yihiin qaarkii la soo socdaan waxaad ku bedesheen carqalad baad ku bedesheen waa ku soo noqon doona carqaladaas amnigii dalka oo sugnaa عبد الولي واد بالبورسي إذا كنت دراويشت من المال كشيء بوليس كمان قال الأمن قال السوق لها إذا ما دي بدأ السوق أيه ودولة صاحبنا هاي يدو عنده كويس تركوب كيس أيه تردي سأيه مال قلنتي سأيه شهرين كيس عنده كويس إذا كي أسوق تمير على وشيء إذا كي سومالي ناشونال آرمي أو سومالي ولا كده حيس طيبت عن كلها هني بوليس والمال كشيء صدق كون أو عيدنا أيها سفيرك مريكنك لو كون يصدق يتومنك جيمس وان صدق كون باقي هشام بير مشاركة أنا قاعد بحنا هنا ديار جريست هنا ديار ريست بكوجوريجي إلى هذا اللي ما هيو قبل هذا أولي ما عمل كودا جارين والمن كودا ياشا أولي ماله بدن هيقولي كايستان عن جارين عيدن كإنسان وهو بيسنيه محد دريس ومالك غيب جلسة وتجلسة ماله بوالله طابرتي ماله بوحبا على يقانا سراكيل هوسا دسنتي سراكينا دسنتي عندما دسني محد سوماليا شنتي سنة أو نصور في ديار جريسي أو تجلسة هل أسكري هل سرقال أو أتببر ودرتي لا ما ينوشرو وما هو يمسجد كوي أنا وأن تببري بريهاس حمر بانكو أركي نفس العادين كوي محتوى وارديك بانكو أركي أو كاهي هل كان بين ما ريال يعني هم ينوين كل لغة بهاي هل كان اللغة بهنا لكن حاجة أسمع دي هذا الحب ما يدمن أنه مرة دي ميالك لك قبانية هو أسمع سيدي مركا أرنداس بربر أمني بعد وريجينيسا رقالة الصبحهم نيجي بيج ديوان كايستار رقالة أو مكيلة أنتو سوقتو هول بنكي كل جان أنتو دكتو ده بعضه السجى يقدون يكون حجان كي برلمانك أيه والعقد عليه هاي ده بعاني ورقهاس والله قد عاية ضد كدينيرتا inflation وحلا قد عا ضد كدينيرتا مساكينتا ما نمول بقوينتو إسلامها إنجي يجوجا هرجي بوساسو بورتيلا مو هذه بورتيلا وقد العصنايو أيام بي كل العجاء سكين كينا هي مساجد تقول قلنا بكورة هي كوي ما العجاء كذا أيو عدينا هي ما أنت هذا وحلا شيء أنا ما عن خصوصا ما رين تحلك وريجينا إني دول الكوفة صدق هي اللواتن أيوها صدق هي اللواتن وها بقولك كم على مليان يصدق بقولك ما أنت وحلا يروا صدن إيه اللي يا كمسؤول هذا كمساكين تاو يعني هذا يعانها قضية هيلب كبا كمسؤولة نسين ننكي لقالها شيء طيب بقولك شيء هذا الشيء جنا يوم معلن كأنه كوها شيء يوم دد كوريجي شيء جنا شن سنة هالكافدي بالقول حساب تميا لقول حساب إلى هاي جو صوب كل حساب تميا دتك هالكا جوجنا آخرا وصل على حساب أدون كانوا وصل على حساب تميا سوماليا أنت هذا كله حمر كم يتاي وعوي لو مليون يافر بقول واحد هالك الدولار مركز بعد بقى ملايين كدي
madaxweynihii dalka iyo ra-iisul baarlamaanka ku-xigeenkii intay makiinad keensadaan bay waxay ku biliqaysanayaan dadkii danyarta ah oo dalkooda ah. qofka marka sidaa sameeyey iyo kuwa kaleo haddaba misna iyaguna rabaa inay guddoomiyayaal ka noqdaan aqalka golaha wakiilada, waa inay ogaadaan dembigay galeen inaan loo dhaafayn, dibna looma dooran karo. wixii xishoonaya ama ilaahay ka baqaya ama aakhira ama dadkooda ka xishoonaya. siyaasadda maqaamkii puntland uu lahaa siyaasad ahaan oo u ahaa tusaale ama role model dowladaha xubinta dowladda federaalka ah maanta dhulkuu yaalla. maxaa yeelay haddee wixii laga filaayay oo ahaa inay macallin ugu noqoto oo kuwa kale caawinto oo ay u dirto maaragtay qaabka cashuuraha urursanayaan, siday amniga u sugeen, siday maaragtay wixii kaga khibrad roonaayeen, waxaasoo dhan inay ka caawinto. iyadii baaba intaa gurigeedii loogu yimi lagu shiray waxaa lagaga dhawaaqay jabhado SSDF iyo UAC iyo SPM baaba lagaga dhawaaqay garowga intaa laysugu yimi oo la yidhi Soomaaliya baa xarun ka dhaqaynaa jabhadaan waa la jabhadaynaya. waxaan joognaa waagii dowladdii Maxamed Siyaad ay ku bilaabeen jabhadu miyaan maanta joognaa inagoo maanta dowlad federaal ah oo dowladii xubintahay wada dhisan yihiin oo maanta la filaayo dowladda Soomaaliya inay isla wada saan qaado oo adigu aad tahay ninkii lagu tashanayay oo maamulka ugu dhisnaa madaxda ka ahaa hogaaminta wanaagga u noqon lahaa inaad taas noqoto. waxaan inii sheegayaa maanta arrinta khilaafka ahi weliba khaas ahaan dhinaca puntland kuma dhisna khilaaf rasmi oo daacada. documentigiisaan idin siinayaa si anagu kaga jawaabnay kaasa aynu ku filan inay annaga nagu kalsoonaan bay ku filay intay hadda meel ku boodayaan mar Nairobi aadayaan midna meel aadaya. waxa weeye waxay ku dhisnayd dukaamaysi dhaqaale, dukaamaysigii dhaqaale oo dowladdan ka horeysay lagu qabay iyo madal in lagu go-aaminayay meeshii maqaamkii ay lahayd baarlamaanka aqalka shacabka iyo kii federaalka magaca la sameyn go-aankooda waxay gaari lahaayeen oo xeerkii doorashada dalka lagu maamulaya samayn lahaayeen in aakhirka ay ku dhammaato waxa soo socda oo dhan inay sidii hore ay ahaato oo ah madal aakhirka damin lagu dameeyo aqaladii baarlamaanka lasoo xiro guddoomiyaha aqalada albada guddoomiye aqalada iyo dowladda dhexe iyo inay isu yimaadaan iyo maamulada oo ay kula heshiiyaan oo laga diiday oo la codsaday oo la yidhi 2 sano 2021 doorashada aan isla gaaro anaga korsiimo noo sameeyay oo laga diiday oo la yidhi intaas oo lacag na siiya qaarkood intay tageen xamar ay yiraahdeen intaas oo lacag hana la siiyo anaga soo afxirayne oo laga diiday oo anigoo negotiation kaga jira walaalka inaan soo saaro madaxweynaha la fadhiya Cabdiweli oo soo wacayo waxaan hadda xaq ka sheegay xaqana oo soo wacayo oo rabayshis daaray la galo intaas oo ogaad. marka ciidina ma maqneen inta khasaare aad gali lahaydeen shacabka shaweynow iyo baarlamaanka ay soo doorteen ka tashada meeshaan ganacsi baa yeelay ma oolin dowlad iyo maamul ma oolin. ugu dambeyntii waxaan kula talinayaa madaxweynaha hadda xil ka dhamaaday inuu ka tanasulo sharxaadiisa. talaabooyin badan baan siiyey ma uu yeeli jirin wax ku ool mid caam ay ahayd hadda mid shakhsiyaan siinay. midda shakhsiga waxa weeye Cabdiweli Juun 9 2014 waxaa tiri haddaan doorasho qaban waayo qof iyo coda iyadoo waraaqihii maamulada dowladaha hoose ay ku codayn lahaayeen loogu codayn lahaa ay ku jiraan maxay karaatintii oo ay yaalin guriyeyna u jaaran yihiin haddaad hirgelin weyday marka adigu hadalkaa tiri niyadaadu ka soo go'ay laakiin maanta ninkii maahida nin kala ta laakiin dadkii ku dhageysanayay anaga ka mid ah ilaahayna waa ku maqlahay rikoorkaasuna waa kugu jira looxul maxfuud 2014 bishii Juun 9 hadalkaa tiri may saraxayo waana aan fashalmay adaa isku marag furay. January 5 2016 waxaa tiri anigu isma sharaxayo. March oo sanadkaana 10 waxaa tiri anigu isma sharaxayo. maxaa maanta isu sharax ya su-aashu waxa weeye maxaa maanta isu sharax maadan ismaqlayn maadan rikoor anuu rikoorada waa haynaa maxaa radio rikoor jira aqoonyahan baa la sheeganaysa